Aabbahan waxa uu Ilaahay siiyey 5 gabdhood. 5ta gabdhood hooyadii u dhashay, Ilaahay ayaa oofsaday oo waa ay dhimatay. 5tii gabdhood ayaa uu si fiican u barbaariyey. Kadib markii ay waaweynaadeen ayaa uu isugu yeedhay. Waxa uuna ku yidhi, waxaan doonayaa inaad reero yeelataan. Kadib 4tii gabdhood kale waa ay aqbaleen, 1 gabadh mooyaane. Waxaana uu weydiiyey sababta ay u guursan weyday. Waxaana ay tidhi, ilaa aniga Ilaahay oofsado ama aabbe Ilaahay oofsado, aabbahay ayaan xanaanaynayaa. Kadibna waxay dhexda u xidhatay xanaanaynta aabbaheed, halka ay gabdhihii kale reero yeesheen oo ay guursadeen. Kadib aabbihii ayaa geeriyooday, waxaana gurigii laga helay warqad dardaaran ah oo uu ku leeyahay 4ta gabdhood ee reeraha lahow, gabadha walaashiin ah ee cuwadda ah ilaa inta ay reer ka yeelanayso, guriga ha iibinina ama ha gadina. Kadib gabdhihii dardaarankii aabbahood dheg jalaq uma ay siine, gurigii waa ay iibiyeen. Markii gurigii ay iibiyeen, gurigii waxaa iibsaday nin ganacsade ah oo taajir ah. Kadib gabadhii waxay ka codsatay ninkii guriga iibsaday inuu u oggolaado in muddo ah, ilaa inta ay ka helayso guri ay gasho. Ninkiina waa uu ka yeelay oo waa uu u oggolaaday inay guriga ku sii noolaato. Kadib gabdhihii waxay kala qaateen lacagihii, gabadhiina waxa ay siiyeen wixii ay xaqa u lahayd. Kadib waxaa dhammaatay muddadii ay ninka ku heshiiyeen. Gabadhii oo walwalsan ayaa waxa soo wacay ninkii guriga lahaa, waxaana uu weydiiyey inay guriga joogto iyo in kale. Waxayna u sheegtay inayna helin weli meel ay u guurto. Kadib ninkii ayaa u yimid, waxaana uu keenay warqad oo uu ku sheegayo inuu warqadda maxkamadda ka keenay, guriganna uu iyada u hibeeyey maadaama ay ahayd baariyad aabbaheed xanaanaynaysay ilaa uu ka geeriyoodo. Gabadhiina waxa uu ka codsaday inay nolol wadaagaan oo ay isguursadaan. Gabadhiina waa ay ka aqbashay. Qisadan waxaa laga faa'iidayaa haddii aad waalidka abaal u gasho, inaanu Ilaahay kaa qadinayn abaalka aad waalidkaaga u gashay. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar channelka. Haddii aad hore noola socotayna, share garee. Waad ku mahadsan tahay la socodkaaga.